shaqada in qof kilkishiisa la ursado, shaqada nadiifinta matagga, shaqada in la seexdo, shaqada oohinta. Subhanallah, subhanallah. dadka bani'aadamku waxay aroor walba u kalahaan shaqo si ay nolol maalmeedkooda u dabaraan ooy baahiyahooga gaarka ah ee kala duwan ay u daboolaan. shaqooyinkaas ay dadku ka shaqeeyaan waa kuwo kala duwan, intooda badanna waynu wada naqaanaa, qaarna waaban ka shaqaynaa, balse waxaa jira shaqooyin badan oo aadan rumaysan doonin inay jiraan, kuwaas oy dad mushaar ku qaataan. haddaba daawade muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa 10 shaqo ee ugu layaabka badan caalamka ee la socod wacan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah. mahadsanid. 1. shaqada in qof kilkishiisa la ursado. shaqadan waxaa laga helaa warshadaha sameeya dhammaan noocyada cadarka ama barafuunka, kuwaas oo shaqaalaysiiya dad urta ku takhasusay, kuwaas oo hubiya in barafuunka ur fiican leeyahay, sidoo kale go'aamiya oo xaqiijiya ilaa inta udgoonku sii jiraayo ayagoo ursanaya qof kilkishiisa, kaas oo lagu tijaabinayo urta. 2. shaqada in qof loo galo saf. dadka ka shaqeeya shaqadan ayaa sameeya hal shay oo inteena badan aan dulqaad u haynin, taas oo ah inaad saf taagnaato, gaar ahaan marka uu wakhtigu kugu yar yahay. haddaba waxaa jira dad shaqo ahaan uga faa'iidaysta in qof daahsan ama aan awoodin taagnaanta iyo inuu galo saf dheer oo uu ku sugayo adeeg. mushaarka ay qaataan dadkaas wuxuu ku xihan yahay hadba inta uu la eg yahay safka iyo wakhtiga uu qofku taagnaa safka. 3. shaqada in taargada gaariga la qariyo. si loo yareeyo saxmadda gawaadhida ee waddooyinka waddanka Iiraan, waxaa jira sharci kaasoo baabuurta maalmo loogu kala sameeyey inay magaalada aadaan. sharcigan ayaa gawaarida leh taarikada nambarada tirada buuxda iyo nambarada tirada dhiman u oggol inay waddooyinka u soo kala baxaan maalmo kala duwan. haddaba halkaas waxaa ka soo baxday shaqo oo dadka gawaarida leh ayaa shaqaalaysiiya dad u qariya taargada gawaadhidooda marka ay joogaan goobaha ay ku xihan tahay kaamirada CCTV si aan loo arkin xilliga ay sharciga jebinayaan. 4. shaqada la ursado warqadaha musqulaha. shirkadaha soo saara warqadaha lagu isticmaalo musqulaha waxay shaqaalaysiiyaan dad xaqiijiya tayada wax soo saarkooda ka hor inta aysan suuq geynin iyo kadib marka la isticmaalo. warshadda gudaheeda waxaa ka shaqeeya dad ay hawshooda tahay inay ursadaan isla marka la sameeyo. 5. shaqada kala garashada digaagga labka iyo dheddiga. digaaggu marka ay yaryar yihiin aad ayay u adag tahay in la kala garto midkiisa lab iyo kiisa dheddig. haddaba waxaa jira dad ku takhasusay sida loo kala garto. dadka shaqadan ka shaqeeya ayaa go'aamiya jinsiga digaagga, haddii ay tahay dheddig ama lab. xirfadlayaasha shaqadan waxay si sax ah oo degdeg ah u ogaan karaan haddii digaaggu yahay dheddig ama lab, sababtoo ah waa muhiim in la ogaado haddii digaaggu yahay digaagad ama diiq ka hor intaysan si buuxda u korin. 6. shaqada nadiifinta matagga. shaqada nadiifinta mantaga ayaa ah mid si joogto ah looga qabto, gaar ahaan goobaha ay dadweynaha ku badan yihiin sida basaska iyo tareennada ama meelaha laga dukaamaysto. haddaba waxaa jira dad gaar ah ooy shaqadoodu tahay nadiifinta mantaga oo mushaar ku qaata oo reero ka biila. 7. shaqada oohinta iyo baroorta. Subhanallah, subhanallah. dhaqamada qaarkood shaqaalaysiinta dad baroor diiqayaal ah maaha mid ku cusub. marka qof muhiim ah dhinto laakiin aanu lahayn saaxiibo iyo qaraabo badan, qoyska qofku waxay shaqaalaysiiyaan dad baroor diiqayaal ah oo xirfad u leh sida loo ooyo ama loo baroorto si ay uga qayb qaataan aaska. ujeeddadu waa in kor loo qaado sumcadda qofka dhintay. 8. shaqada dadka lagu riixo tareennada. shaqadan waxaa laga helaa dalka Jabaan. xilliyada subaxdii goobaha tareennada laga raaco waxaa buux dhaafiya dadka tareennada raaca si ay u shaqo tagaan. waddanka Jabaan wuxuu ka mid yahay dalalka shacabkooda ugu mashquulka badan yihiin. haddaba si loo xaqiijiyo sidii uu qof walba goobtiisa shaqada ugu tagi lahaa xilliga habboon, dowladda waxay shaqaalaysiisay
dad xirfad u leh inay shacabka ku riixaan tareennada si dad badan u qaado oo uusan qofna uga daahin shaqadiisa. 9. Shaqada inaad hurudo. Ka waran haddii lagugu dhaho iska seexo oo mushaar qaado, waxaan shaki la'aan ah in dad badani ay shaqadan jeclaysan lahaayeen inay ka shaqeeyaan. Waa suuragal inaad la yaaban tahay in hurdo lagu helayo mushaar. Haa, waa sax, dad ayaa lacag lagu siiyaa inay seexdaan. Waxay u shaqeeyaan saynisyahanno cilmi baaris ku sameeya hurdo wanaagga iyo dhibaatooyinka hurdo la'aanta. Dadka shaqadaas hurdada ka shaqeeya waa dad nasiib wanaagsan, mays odhan lahayd. 10. Shaqada in la dhaco bangi si sharci ah. Ma jeceshahay inaad dhacdo ama xaddo bangi iyada oo aan lahayn khatar ah in lagu xidho oo xabsiga lagu dhigo? Hagaag, waxaad noqon kartaa tuug bangiyada dhaca si sharci ah. Ujeeddada doorka shaqadan ayaa ah in la tijaabiyo heerka amniga ee goobta si looga hortago dhacdooyinka noocaas ah. Waxaa jira tuugo been abuur ah kuwaas oo si sharci ah u dhaca bangiyada iyo goob wala oo loo diro si loo tijaabiyo nidaamka amniga iyo feejignaanta ka jirta goobtaasi.